الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaan ku jirnaa bishii Shacbaan ee ka horeysay bisha Ramadaan. waqti walba iyo xilli walbana wuxuu leeyahay cibaadaad munaasab ah oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ka sugan, ama si guud ama si gaar ah. bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay, laakiin nabigeenu salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooniye ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo, bishan inuu soonkeeda badiyo. Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma, ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin. soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. xadiidka riwaayo kale oo tiisa waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, nabigu bisha Shacbaan oo dhan waa wada soomi jiray. riwaayo kalena waxay leedahay Shacbaan oo dhan buu soomi jiray in yar mooyee, wax yar ayuu afuri jiray, inteeda badanna waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiid kale oo Aisha ay warinayso sunan Abi Daawud ku yimidna waxay leedahay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bisha uu ugu jecel yahay inuu soomo Shacbaan bay ahaan jirtay. soonka uu soomo yahay bisha Shacbaanna wuxuu ku xiriirin jiray soonka bisha Ramadaan. caaday u ahayd nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. macnaha inoo soo baxaya waxa weeye nabigeena si aan ugu dayano salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bishan cidii kari karta soonkeeda ha badiso. hadigii nabigeena way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tariiqiisii